يعني ururka Soldier uu doonaya inuu kaga hadlo xaalad taagan oo runtii ah mid khusaysa ururka maadaama ururku mas'uul ka yahay arrimaha saxaafadda kuna midaysan yihiin dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland hadday noqoto kuwa dawliga ah iyo hadday noqoto kuwa madaxa banaanba ururku laba arrimood buu ka shaqeeyaa oo ay u samaysatay saxaafadda Soomaaliland waa koowaad waa inuu horumarka saxaafadda ka shaqeeyo oo uu aqoontooda iyo tababaradooda runtii u raadiyo oo la doono arrinka labaadna waxa weeye kiisaska ama dacwadaha saxaafadda ka dhanka runtii inuu ururku ka shaqeeyo oo uu ka difaaco saxafiyiinta haddii laga gardaran yahay sidoo kalena uu ururku ka jawaabo saxafiyiinta Soomaaliland mararka ay qaladaad ka leedahay ama ay iyadu gardarrada leedahay inkastoo yar tahay inta badan in saxaafaddu ay runtii ama ururku uu ka hadlo dhacdooyinka caynkaas oo kala haddana runtii waxa muhiim ah maadaama mar walba ururku u doodo saxaafadda in wixii dhibaato ah saxaafaddu sameynaysa runtii ama garowshiye ka bixiyo sida xeerka saxaafaddu dhigayo ama runtii uu saxo waxa aan la soconaa dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland inuu leeyahay xeer saxaafadeed oo soo baxay 2004 xeerkaasi oo la yiraahdo xeer number 27 xeerkaasi runtii mas'uuliyad iyo waajibaad buu farayaa saxafiyiinta sidoo kalena hay'adaha dawliga iyana mas'uuliyad iyo waajibaad buu farayaa waxaana wanaagsan in qolo walbaaba sharciga raacdo oo ay ixtiraamto sidoo kale ururku wuxuu leeyahay oo saxafiyiinta Soomaaliland gobolada kuwa jooga iyo kuwa caasimadda jooga meel kasta ay joogaan saxafiyiinta Soomaaliland ku midaysan yihiin oo ay sameysteen xeer anshax oo ururku uu runtii ku ilaaliyo saxafiyiinta in ay ka shaqeeyaan ama in ay ku shaqeeyaan kuna daba galaan kolba sidii ay u fulinayaan xeerkaas oo runtii dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland ay aqbaleen oo runtii ay kulamadii loo qabtay kaga jawaabeen inuu yahay mid anfacayo oo saxaafadda Soomaaliland dhaqi karaya markay halkaasi aanu taaganahay runtii waxa mas'uuliyad urur ka saaran tahay sanadkan cusub durtaba dhowr dacwadood oo ururku ku foogan yahay labada cisho u dambe toddobaadkii u dambeeyay waxa ku jirnay dacwadda wargeyska Foore oo ka socotay maxkamadda gobolka waxa keenay marka in dacwadaasi runtii ay socoto in ciddii ka cabanaysay qaranka oo dhibana ka akiiskaas runtii nidaamka sharciga u maro oo uu aqbalo inta badan baaqadii aanu jeedin jirnay ahayd in aanay xukuumaddu ama mas'uuliyiinta xukuumaddu haday cabasho ka qabaan saxaafadda u marin sifo qaldan ama sifo sharciga ka baxsan runtii waa ugu mahadnaqaynaa xukuumaddu cid kasta oo ka dacwanaysa ama qaranku dhibanaha ka ahaado ama mas'uuliyiin dhibsata dhibanaha ka ahaatee inay nidaamka sharciga u mareen oo wargeyska Foore oo banaanka jooga mas'uuliyiintiisii la dacweeyo anana waa ajiibna taasoo dacwadii meel fiican marsaa gabagaba runtii waxaanu qabnaa sunnaha in ay cid kasta ay marto sidoo kale saaka waxa magaalada Gabiley ka socota dacwad sidaas oo kale maayarka magaaladu dhibana ka yahay oo suxufi maandhood barnaamij ka sameeyay runtii uu haysto taasina waxaan u aragnaa runtii oo ka garaameynaa mas'uulkaas runtii aan uga mahadnaqaynaa inuu sifaha sharciga u maray oo dacwada maxkamadda u maray anana u rahan waxaan diyaar u nahay sidaan balan qaadnay runtii inaanu dacwadaasi sifa sharciya iskaga difaacno oo suxufigaasi iyo hay'adda warbaahintu ka shaqeeyaba ka difaacno oo aanan ku kalsoonahay runtii haddii sidaa sharciga dhinac walbaaba u ilaaliyo in wax badan oo dhibaato ku ah Soomaaliland runtii ay meesha ka baxayaan waxaad la socotaan in mid ka mid ah mulkiilayaasha ama mas'uuliyiinta telefishinka SAB daraad iyo shalay oo dambeysay hadalhayntiisu ay socotay maanta runtii meelaha ugu badan ee laga hadlay ay tahay laga celiyay xadka Gowracado oo uu doonayay inuu barnaamij ka sameeyo sida uu sheegay masjidka qiblatinka iyo waxyaabihii asaarta ama waajibaadkii saxafi ama warbaahineed ee hay'adaas lahayd hase yeeshee runtii waxa uu qabtay ama TV-ga SAB uu ka jeediyay arrintaasi kaga cadanayo waa qabnaa runtii suxufigu wixii dhibah ee ku yimid runtii inuu ka hadlo ana waliba jeclayn in uu ururka soo gaarsiiyo oo saxafiyiinta aan mar walba leenahay ururka idin adeegayo oo wixii cabasheed qabtaan idinka ay taageeraya oo idin maraya wada kasta oo runtii uu idinku soo saarayo haddana Ali Seenyo waxa uu TV-ga ka sii daayay runtii arrimo aan isqabanin oo runtii mihnada saxaafadda iyo xeerka saxaafadda runtii iyo suxufiyiinta karaamadooda baan u aragnay in ay gaf ku tahay
oo aanay habboonayn inuu sidaa uga hadlo dabcan mas-uuliyiinta dowladdu haddii ay ku gafto qofka suxufiga ama hay-adda warbaahinta in nidaamka sharciga ah loo maro oo laysaga difaaco weeyaan oo dacwad laga furto haddii ay dhibaato markaasi qofka suxufiga ama hay-adda saxaafadeed ku timaado xeerka iyo sharciga iyo waxaan ina kala hagaya xeerka anshaxa runtii mas-uuliyiinta iyo mas-uuliyiinta xukuumadda hadday noqoto madaxweyne ilaa hadday noqoto sarkaal booliis oo laga cadanayo runtii waxaa qabnaa sida qodobada 14aad 19aad 21aad 26aad 27aad ee xeerka saxaafaddu ay dhigayaan runtii in uu majara habaabiyey dhibtii iyo cabashadii uu qabay ee ahayd in laga gardaran yahay haddii muwaadinku uu haysto sharci nidaam sharciyana kusoo maray waxaa qabnaa runtii in laga hor istaaga ay xaaraan tahay oo dembi tahay oo aan xaq loogu lahayn hase yeeshee waxaa qabnaa hadallada deelqaafka ah ee cali seenye la soo istaagay telefishinka ee aan war ahayn ee aan faalo ahayn runtii ee aflagaadada ah ee uu kula kacay taliyaha booliiska runtii inay tahay mid aan ururkuna aqbali karayn saxaafadda Soomaaliland runtii karaamadeeda meel kaga dhacaya ururku wuxuu u doodaa saxafiga dhibanaha ee runtii laga gardaran yahay hase yeeshee kuma taageero ururku saxafiga ama mulkiilaha hay-adda warbaahinta runtii ee isagu dhibaatada geysanaya marka waxa aragnaa oo ururku ku taagan yahay garti iyo gardaradii lagu sameeyay cali seenye iyo mas'uuliyiinta telefishinkaas ee doonaya barnaamijyada inay soo duubaan in aan ururku ka hadhi doono ururku xukuumadda ku dabagelaya sababta ay ku dhacday in mas'uul ama wariye doonaya dalka gudihiisa inuu war ka sameeyo barnaamij ka duubo runtii in aanay ahayn in lagu xadgudbo sharcigaana u marayna arrintaas laakiin waxaan runtii marnaba aanan ku taageerin cali seenyo mulkiilayaasha hay'adaha warbaahinta iyo saxafiyiinta kalaba runtii in iyana ku gafaan muwaadiniinta mas'uuliyiinta iyo qaranka Soomaaliland waxaan u aragnaa arrintaas runtii inay tahay mid karaama dhacahayd aan mas'uuliyadiisa ahayn aan waajibkiisa ahayn in uu cali seenyo runtii ka hadlo ama uu ku hadlo waxaad ogtihiin maadaama uu saxafiyiin nahay in bishii ugu dambeysay dhibaato fara badan ka taagan tahay xadka Soomaaliland iyo Djibouti u dhaxeeya waxaad ogtihiin in mas'uuliyiin reer Djibouti laga celiyay iyagoo gudaha Soomaaliland soo galay mas'uuliyadda iyo waajibaadkana waxa leh xukuumadda loo igmaday ee aynu hoosteeda joogno runtii maadaama arrintaasi ay taagnayd waxaad ogtihiin in mas'uuliyiin kale oo reer Soomaaliland loo xiray oo hargeysa ay ugu xiran yihiin sifahaasi mas'uulka reer Djibouti runtii gudaha Soomaaliland lagu soo galiyay isagoo bara saabkii gobolku diiday isagoo aan xukuumadda Soomaaliland aan la soo ogeysiin runtii waxaan aragnaa in maanta dhacdayna runtii ay ahayd in cali seenyo iyo mas'uuliyiinta la socotay ama warbaahinta ahayd runtii ay dareenka yeeshaan oo haddii cid kale ay la socotay runtii iyagu ay iska bari yeelaan haddii barnaamij soo duubayaan iyagu ka warbaahinaan ay gaar u doontaan ama u soo maraan xadka laakiin iyagoo cid kala wata dhacdada hore runtii ay jirto waxaan u aragnaa xukuumaddu siday doontaa u aragtay runtii in ay ahayd in iska barbariyaan iyagoo mas'uuliyadda iyo shaqadooda runtii ay ku koobnaadaan haddii xukuumaddu dhammaantood ay ku wada haysato wax sharci darro runtii waxa qabna inay tahay xukuumaddu cadayso haddii qaar kamida ay ku hakinaysa ama ku reebaysay wax sharci darro ay sameeyeen runtii waxa u qabnaa xukuumaddu inay cadayso laakiin ma qabno suxufiga Soomaaliland inuu isagu taargad u noqdo iyadoo dhibtaasi taagnayd labada dawladoodna arrinta runtii ay isku hayaan oo mugdi fara badan ku jira runtii inay saxaafadda Soomaaliland qayb ka noqoto waxa qabna oo mar walba ka hadla saxaafadda Soomaaliland mar walba badbaadada inay ku jirto in iyadu banaanka ka ahaato wax kasta oo dhibaato ku keenaya haddii uu suxufigu gabaad u noqdo runtii cid dhibaato u keenaysa oo inta badan dhacday in la isticmaalo saxafiyiinta si faqadan loo isticmaalo mas'uuliyiin reer Soomaaliland isticmaasho kuwa kale isticmaalaan runtii in ay arrintaasi bari ka noqdaan oo saxaafadda Soomaaliland mas'uuliyadeeda iyo waajibaadka sharcigu u furdaamiyay ama sharcigu u ogolaaday runtii ee wadada cad ugu sameeyay runtii inay ku koobnaadaan wadada cad raacaan oo aanay midmadowga runtii aanay raacin waxaan qabnaa runtii urur ahaan talo ayaanu ka gaarnay arrinta saako dhan waa ka shirnay waxaan u aragnaa in qodobada aan sheegay xeerka saxaafadda runtii oo suxufiga ku waajibinaya sida uu u waramayo ama sida uu warka u doonaya in aanay ahayn sifo ah caga juglay iyo khasab iyo runtii nidaamka anshax mid ka baxsan ay tahay sida uu xeerka saxaafadda iyo xeerka anshaxuba u ogolaanayo in uu ku doono warka
sifa hufan macquula runtii wixii dhibaatay ka yimaadaan runtii oo nidaamka sharciga ah iskaga difaaco maro aad iyo aad baad mahadsantihiin